وحين دوننا كلمة شيخ إلهي سبحانه وتعالى إنه صار في ميزان حسناته كل واحد كعذر دارنا سؤالها وآدو بدن وحن سدوك كعذر دارنا سؤالها فرت لقو سوق قرية حوجا أفك الصومالي مركح لقو قرا كل رانتي وحوي فهم كي عربي كير فض أنت إلهي نقدر نسيه وقتك وحوي إنه كشيخ كوي دين دونا سدوك كل شيخ نسيت كل رانتي الله هلا وأرقت هاي ساس أوجد تيفيغا إذا عدها قفك وحوي سؤاشي هذا اللي ويدين وايو وحن جعلنا هاي إن لقى حريري كرا الشيخ وحوي إذا عدى برنامج سؤالها هي برنامج سيدو كلا تيفيغا سؤاش كوبات هدي أي نقول قلنا نقول وقتك كفاية سنينا شيخ سؤاش وحا هاي بعد السلام شيخ وحن كويدين يا وضيقة دولة الشقية annagoo bilaa guriga ayaa la nasiiyay guri dawladdu ay leedahay gurigii baan ku jirnay in muddo ah kadib gurigii baa cidhiidhi nagu noqday waxaanu helnay guri kale oo anagu leenahay gurigii baan waxa weeye ku wareejinay qof kale qofkii baa waxa weeye bil walba waxa uu naga siiyaa $75 oo $75 ayaa uu gurigii naga siiyaa guriga dawladdu ay lahayd sheekh ka waran lacagta waa su'aasha koobaad سؤال اللباد وحنا هاي هو يكون المجال هرجيسة أنا قاله شن عرورة نينكيجي أيا إيجا مقن مدلح سنضاء سنة كوجود بي وحبي لو نسيه مشرته كدنا وحوي محكمة أيان تجي في السقاط بنك قاتي تضبط كده بنا وحوي ما شاء الله نبان سكجور سدي مركا محي شريعة الإسلام كقبت أرنتها سؤال صدحات شيخ واحد ربان إن لقيت شاهل سارو قوري جيجا وحوها قوري بلشاوية أو أي ضد بدني كنوا إيمان شرين مركي ودنتي أضيق عرورته أضيق يجو أما سيجي ودنتي أبهود ضد كي قوري ويكود أي وريجين ويكتجين شيخ مركي هدي أي مرتقى أي مرتيان ضدك فاميلي أهي وحمسين كرا سؤال شكل وحا أي تاي شيخ نجتها السار صلاة الله يقانو صلاة التصابيح صدح بقول أو تصابيح أي كترتو مترتا صلاة أساس مسمى ترتو سؤال شكل هدي أي نسرع راعين وحا أي لا هاي واحد نوجته وابتا الشيخ بارك الله فيك مركز سوري اللجو ويجيسن أيوه باسم كامل لقب سنة سؤال شنينا وحا أي تاي شيخ waxaa jira nin dhalinyaro ah oo aan la sheekaysanin muddo ah wali ismaanaan guursanin kharash la'aan daraadeed sheekada ma sii wadi karnaa sharcigu muxuu ka qabaa sheekh heesaha afka laga qaado sida badan dumarka ee bilaa muusigada ah ma dambiba sharcigu muxuu ka qabaa su'aashu iyana waxa ay tahay sheekh waxaad iga jaahil saartaa abtigay inaan uu dhalay oo jeel magnuunka ku jira ayaa maalinta khamiista ah u geeya cunto caruur agoona waan haystaa isna cid ma laha hooyo iyo aabbo toona markaanba dembiba in waxa weeye agoonta cunto waxa uga geeyo sheekh waxa ila nool bay leeyahay su'aasha labaad waxa ila nool hooyaday oo iska xanuunsanaysa sheekh markaa wixii cunto ah ama dawo ah oo aan siiyo wax dambi ah ma iga imanaya miyaa wada sheekh waayahay sheekh waxa aan ku weydiinayaa bay leedahay qof marka uu gabadhu marka ayna daahirka ahayn ee ay habeenkii seexanayso ma akhrisan kartaa aayadaha iyo ducooyinka waxa weeye sunnaha ah ee waxa weeye qof markuu seexanayo la akhristo sanka in la dalooliyo dahabna la gashado ma xaaraan baa mise waa mid bannaan waxa ay gabadhan leedahay hagbadda aad hayso ma ka geli kartaa gacan aad adigu leedahay waay barakallahu fiik بسم الله الرحمن الرحيم waxaan uga jeednaa inaynu waqtiga ka faa'iideysano
ayaynu su'aalaha isu raacraacinaynaa jawaabahana waynu ku soo dhowaan doonaa insha Allah si aynu tiro badan u heli karno guryaha dawladda waa hantidii ummadda waxay la mid yihiin lacagtan baanka inoo taalo kale lacagta baanka taala ayuunbay guryuhuna la mid yihiin haddii adigu si xaqa aad ku qaadatayna xalaal bay kuu noqonayaan haddaad xaqdarro ku qaadatayna waa xaaraan marka gurigan isagaa miyaad iibsatay oo lacagtaadii baad gelisay ma waxa laguu siiyey xaq oo wax horaa lagu xisaabiyey mise waad iska qabsatay haddii arrintu ay tahay inaad iska qabsatay sidii aynu u badnayn oo kadibna aad iska kiraysatay cid kuu sharciyaysay iyo xaqaad ku qaadatay toona aanu jirin mana kiraysan kartid dadna kama sii iibin kartid waa hanti ummadeedee hanti qof kalunbay la mid qof kale oo guryaha magaalada ku yaalla gurigiisa sidaanad una kiraysan karin una iibsan karin ayay kuwana la mid yihiin wixii aad ka qaadatayna ummaddaad u celin nin baan fasakhaad ka qaatay masaariif la'aan daraaddeed oo aanu masaariifi siin jirin anigoon cadad bixin baan guursaday ninkaa haddii aydaan isla aqalgelin fasakhaadaaduna sharci tahay waad guursan kartaa laakiin haddii fasakhaadaadu khayru sharci ayd ood qaadiga been u sheegtay ama laaluush siisay ama idinkoo isla aqalgalay 10 sanana ha kaa maqnaadee intaanad cadad bixin aad mehersatay nin waxba kama jiraan meherkaa oo gabadhu marka la fasakho ama la furo dee waa inay cadad baxdaa sida qur-aankuba caddaynayo 3 bilood ama 3 dhiig waa inay tirsataa haddii ninka ay muddo dheer xataa kala maqnaayeen cadadbaxa way u baahantay arrinta qaladka la fahmaya waa halka waxa laga yaabaa inay tiraa 5 sano 6 sano 7 sano ismaanu arag weligiin bahay sarkina maanta markan laga fasakhay ama uu ku furay cadadbixi waa kow haddii adigoon cadad bixin aad nin guursatayna guurkaasi waxba kama jira dib ugu noqo xoolihii agoonta laba su'aalood baa ka soo noqday oo midina abtigay baa wax ka siiyaa midina ehelkii guriga joogi jiray baa wax ka cuna xoolaha agoonta waxa wax ka cuni kara markaynu soo ururino qofka iyaga wax u qabanaya ama guriga u ilaaliya ama wax baraya ama u shaqeeya rag iyo dumarkaasa ama wax ku darsada qof aan intaa midna ahayn waxba kama cuni karo ehel kasta ha ahaado su'aasha sheegaysa salaatu tasaabiix way jirtaa xadiidka culimada qaarkood daciif bay ku tilmaamaan laakiin xadiidkaasi wuu sugan yahay salaatu tasaabiix waa la tukan karaya kayfiyada loo tukanayana cajaladahaad ka dhagaysan kutubta qoraysana waad ka akhrisan waa kaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo xusaya markaad weysaysanaya xamaamka dhexdiisa dikriga waad iska dayn bisinka ducooyinka adkaarta kale waad iska dayn doonta oo dikriga ilaahay ee bisinku ka mid yahay waxa uu mudan yahay ixtiraam iyo maamuus nin baanu ka sheekaysanaynay muddo dheer guur haddii guurkiinni aanu soconaynin sheekada waa joojinaysaa marka ilaahay idiin sakhiro maalaa ku guursataan ayay idin dib soo cusboonaysiin doontaa sharcigu wuxuu ogol yahay in guur laga sheekaysto muddada labada qof arrimahooda ay ka wada hadlayaan laakiin waa qalad wadaad iyo waranle mid kastaba sheekadan dhallinyaradu ay aadka u sheekaysanayaan iyo isdaawashada isdaawanayaan iyo isla bixidda isla baxayaan iyo isla gooni noqoshada intuba waa xaaraan shaydaankuna waa meeluhu ka adeega sinadu ay ka dhacdo ila waa laba qof oo bani aadama malaa'ig dhowrsoon ma haddee waa waxaan way uuraysatay meelaha ay ka timaado weeye nin iyo naag wada socday muddo dheer uunbaa way uuraysatay ay ka soo baxdaa sharcigu u ogolaya labada qof inay wada hadlaan is eegaanna laakiin wixii waa inuu xad yeeshaa way wada baxaan iyo way wada casheeyaan iyo way wada haasaawaan wax la eedaabaa ka soo baxa marka hooyooyinow kaalintiinna qaata hablihiinnu wixii adabdarray samaynayaan ha ku eegina waayo ceebtaasi adiga ayuunbay kugu soo noqonaysa ceebtaasi waa ina heblaayo aday ku haysataa marka ka hortag samee alwiqaayatu khayrun min alcilaaj
intaad odhan lahayd hebel baa u baxee waar kaalay ku qaado maxaa adiga nin horora inantaada idin dhex geynayaba ilaasho oo qabso habluhuna naftooda qaaliga ah yay qiimo ridin hablaheennu waa qaaliyay rakhiis iska dhigin baaraka allaahu fiikum su-aasha la xidhiidha heeso ama suuldhabaale ama miyuusi garaaco heesi waa heesuun qur-aanka ilaahay akhriya dikriga akhriya anaashiidda ducada iyo istikfaartu ay ku jirta akhriya heesaha qalbigaa ku madoobaada qur-aankana qalbigu wuu ku nuuraa marka ahlulqur'aan noqdo oo ahlulghinaa ha noqonina ehelka qur-aanka noqdo ehelka heesaha ha noqonina si aan qalbigu idiin madoobaan waalidka su-aasha kale ma ku dirqii karaa wixii dantiisa ah hadduu asaasaqo ama weynaado mase u diidi karaa wuxuu doonayo ee isaga dhibaato ku ahaa ilaahay baa wuxuu uhi wasaaxibhumaa fi dunya macruufan waalidka si wanaagsan ula dhaqan baa ilahay uhi adduunyada markaa haddii uu dawada diidayo oo cunnada diidayo oo maydhashada diidayo waa sida ilmaha yaroo kale un ilmahaaga yidhi hadduu raashinka iyo hurdada iyo dawadaba diida miyaad iska daysaa dee mise waad ku dirqidaa ilmaha yarunbuu la mid yahay hadduu waalidkii asaasaqa ama waxu dhinmaanuu sillanaado oo jaad iyo sigaar unuu kaa doono iyo wax sillan waad ka joojinaysaa wixii dantiisaa waa loo dirqii karaa hadduu ku habaarana ducay kuu noqonaysa waayo dantiisaad waddaa su-aasha kale la xidhiidha markaan caadada leeyahay maxaan yeelayaa aan sii seexanaya ama wardigaygu muxuu noqonayaa wardigaagu wuxuu noqonayaa ka ku qoran xisnulmuslimka iyo adkaarta faraha badane ka soo arooray nebiga calayhi salaatu wasalaam marka aayaadka qur-aanka waad iska dayno maadaama muran ka dhacay wardiga kale faraha badan ayaad akhriyi doonta bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa acuudu bikalimaati illaahi taamaati min shari maa khalaq adkaartaa faraha badan adkaaru sabaax adkaaru lmasaa adkaaru noom xisnulmuslimka ka akhri inta aad daahirayso sanka ma la dalooshan karaa maya hindidun baynu dee ku naqaanaa iyo cawaamkooda inay isticmaalaan wakhtigii rasuulka dhagaha iyo qoorta iyo gacmahay dumarku ka xaragoon jireen hagbadda qofku wuu geli karaa laakiin waa inaanu markaa dee mushqaayad ka qaadanin si aanay u noqon amaah dheef soo jiida haddaad hagbadda ku jirto waxba mushqaayad ha ka qaadanin haddaad mushqaayad ka qaadanaysana iyada ha gelin wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh su-aashu waxa ay u dhigan tahay beer buu aabbahay xabaalo u bixiyey intuu noolaa xabaalihiina waa loo diiday iyadoo lagu cilaynayo waa dhul gootaana oo aan ku habboonayn xabaalaha beertii annagu ma iibsan karnaa oo xabaalo kale ma ugu beddeli karnaa waqfigii aabbahay uu niyooday taas waa su'aal sheekh waxaan doonayaa in laga jaahil saaro bay gabadhani leedahay carruurtayda aabbahood oo xajka ku dhintay oo doonayay inuu u beddelo shaqadiisa oo ahayd jaadka markuu soo noqdo laakiinse tii alle ay ka soo horraysay lacag uu ka tegay carruurtayda waxa weeye masruuf ma uga dhigi karaa lacagtuna ay ka soo jeedo jaadka su-aashan kale waxa ay tahay eenata saddexaad sheekh markaan salaadda tukanaayo waxaa qalbigayga ku soo dhaca waxyaabo gaalnimo leh ah ee haddaanan afka kaga dhawaaqin maan ku gaaloobayaa su-aashan afraadyana waxa ay tahay sheekh naga jaahil saar xijaabka su-aashu waxay u dhigan tahay ina alxijaab aladii yartadiihu nisaa xijaabka dumarku ay xidhaan xukunkiisu muxuu noqonayaa haddii waxa weeye ragguna ay surwaalla ka dhigtaan taas waa qodob su-aashani waxa ay tahay ayeyday ayaa markii ay dhimatay ee naftu ka baxday meydkeegii bisad baanu ka kari weynay ciyaadan billaah su-aashan iyana waxa ay tahay waxaad ka warantaa marka uu imaamku ku jiro khudbadda jimcaha haddii uu qofku soo galo masjidka ma tukanayaa labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka mise waa iska fadhiisanayaa afiiduuna afaadakum ullah su-aasha ku xigta ee ku laran waxa ay tahay sheekh waxa aad iga jaahil saartaa haddii ay labadayda waalid ay mid ka mid ah uu dhinto isaga oo ku dhex jira bishii ramadaan markaa sheekh ma ka soomayaa inta u hadhay mise fideo ayaan u bixinayaa
su-aashan iyana waxa ay u dhigan tahay sheekh alfataax waa magac alla ee carruurta yaryar ma loo bixin karaa su-aashan iyana waxa ay tahay waxa aan doonayaa in aan daaciyad noqdo maa sha allah sheekh maxaad igula telin lahayd sheekh waxaan muxaadarooyinka u jeediyaa ardayda oo iskugu jirta hablo iyo inamo marka inamada aan hortaaganahay daraaddeed coodkayga isla xaaladdaa cawro ma yahay mise ma aha jazaaka allahu khayr bismi illaahi raxmaan raxiim dhulka haddii la waqfo oo waqaf loo bixiyo waxaa loo bedeli karaa un maslaxadda waqafka marka haddii xabaalo meel loogu talagalay xabaalo noqon weyday intoo la iibiyo meel kaleo xabaalaa lagu iibin doonaa xabaalo noqon karaysa haddii dhismo kale ay noqon karto iyo meel ummadda guryo looga dhisana waqafkii si kaleunbaa loo bedeli danta waqafka daraaddeed iyo sida uu ku wanaagsan yahay waa loo bedeli karayaa waqafkii laakiin inay dadku iska qaataan waqafkii waalidku bixiya waa xaaraan shay haddii la waqfo iska ilaaliya wax haddii la waqfo milkigiisu ilaahay buu u guuray qofka waqafkii waalidku bixiye ku qabsada ilaahay buu ku qabsaday dee kii aadamaha ku qabsadayna ka ilaahay ku qabsadaa ka sii daran lacagta qaadka dee culimmada islaamku inay xaaraantay bay sheegeen qofku danaha guud ha geliya bay dhaheen waswaaska qofku marka uu ama salaada ku jiro ama bannaankaba joogo waxyaabaha laabtiisa ku soo dhaca haddaanu ku hadal loo qori maayo laakiin kolley waa inuu shaydaanka iska naaraa qalbigiisana nadiifiyaa wixii waswaaska u sababayana ka dheeraadaa adkaarta iyo dahaarada iyo cibaadadana badiyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy ilaahay ummaddaydan wuxuu ka dhaafay wixii nafteedu ay ugu sheekayso mar kale waxa uu idhi shayddaanku midkiin wuu imanayaa wuxuu odhanayaa waxan yaa abuuray ilaahay waxana yaa abuuray ilaahay waxana yaa abuuray ilaahay ilaahayna yaa abuuray buu odhanayaa buuri markuu halkaa idinla gaadho iska naara buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waa nicmo weyn inaan ilaahay inoo qorin waxa qalbigeenna maraya iyo maskaxdeenna laakiin inuu qofkii ku hadla maaha wixii xun dharka xijaabka laga tolo raggu safaari iyo surwaalla ma ka tolan karaan haa wax dhibi kuma jiro haddii aanu ahayn dee dhar khaas ahoo dumarka loo yaqaano haddaanu ahayn laakiin uu yahay dharkaa adage labada dhanba noqon karaa ragguna dhar wuu ka tolan karaa dumarkuna xijaab way ka tolan karaan ilaa wixii waa qumaash marka la leeyahay dharka dumarka waa kii loo tolay habka dumarka ee toobkii iyo xijaabkii iyo cabaayaddii dumarku xidhan jireen weeye kaasunbaa raggii loo diidaya laakiin qumaashka iyo marada laftigeeda haddaanay dumarka u khaas ahayna la wadaago dhib ma leh hooyada ayaydee baa dhimatay oo meydkeedii baa bisad laga kari waayey ma sheegaysa inay ahlu naaro tahay ama qof xun tahay bisaddu inay edab daran tahay baa laga yaabaa bisaddu inay iska balaysan tahay baa suuragala ama shayddaanba uu isku soo shabbahay marka ma odhan karna daliil waxay u tahay qofkan inuu dembaabay qofku marka uu yimaado masaajidka iyada oo khudbadda uu akhriyaya khatiibku labada ragcadood wuu tukanaya xataa hadduu fadhiisto wuu kacaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo khudbadda akhriyaya ayuu asxaabi soo galay hebelow markaasuu iska fadhiistay hebelow miyaa tukatay buu labadii ragcadood maya kacoo tuka buuri qum farkac ora labada ragcadood tuka buuri markaa waxa keliya la ogol yahay maaha qur-aan maaha duco maaha salliga laakiin waa labada ragcadood waa la ogolyahay intuu khudbadda wada khatiibku waalidkii baa dhintay ramadaan ma ka soo qallaynaya ama ma lagu leeyay maya qofku intuu nool iyo caafimaad qabuunbaa cibaadada lagu leeyay hadduu xataa ramadaantaa qaybteedii hore bukay qaybteedii dambena dhintay qalana laguma leh fidyana laguma leh waayo gaboodfalba muu samaynin dee mar hadduu bukaan ahaa noocii laga qallaynayay ma aha markaa laga soo gudayay ma aha fidyana lagama bixinayo
qofka cabdilfataax baa loo bixinayaa laakiin alfataax oo alleh oo sidaas macrifo waa looma bixinayo waxaan doonayaa inaan daaciyad noqdo dadkana aan waxu sheego haa waa ta keliya laga doonayaba dumarka in dantii caamka ahayd ee ummadoo diintu ay kow ka tahay isu taagaan dumarkii rasuulkana ilaahay wuu kala hadlay dumarkii rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma ummadda gaadhsiiyo faafiyo akhriya waxa guryihiinna lagu akhriyayo aayaadka iyo xikmadda ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka soo qaado ummadda gaadhsiiya aadaabtii sharciga ahayd iyadoo gabadhu ilaalinaysa kaalinteeda dacwadda way qaadanaysaa waxay ka bilaabaysaana ubadkeeda iyo aqalkeeda iyo ehelkeeda intaasoo aafaysan ummad kale maxay u sheegi intaasay ka bilaabi jaarkay gaadhsiin doontaa dumarkay ku sii wadi intaa hadday ka soo baxda dee ragga ha u sii gudubto laakiin in ka badan baaba hor yaallaba dumarka dhallinyarada yaryar ee markaa mucallimadda ay u tahay waxway u sheegi kartaa hadday aadaabtii islaamiga ahayd ilaalinayso udgoon ma laha qaawanaan ma laha khulwo ma laha wax fitnaa lagama baqayo marka codkeedana way maqli karaan casharana way siin kartaa laakiin waxa laga maarmaan aadaabtii islaamiga ahayd in la ilaaliyo wallahu aclam jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aashan waxa ay tahay inagoo waqti ka faa'idaysanaynaa ninkaygii baa iga tahriibay nacuudu billaah ninkii baa iga tahriibay 2 carruurna waan u hayaa muddo 3 sano ah markaa isma hayno markaa maan furanahay sheekh su-aasha labaad waxa ay tahay waxaan haystay lacag waxaan rabay inaan xajka ku tago dabadeed way ii suurtogeli weyday markaa maxaa sako ah ee ka baxaysa lacagtuna waa $2,000 su-aashu waxay u dhigan tahay habro wadaagtay aabbahay ma u dhisi karaa oo habreertay dhashay gabadh habro wadaagtaya aabbahay ma u dhisi karaa sheekh waxaan doonayaa inaad su-aashaa su-aal ku lamaan habro wadaagtu ma iskeydaa sheekh waxaan doonayaa inaad iga jaahil saarto waxaan dumarku ay ku magacaabaan musubiyaanad sheekh ka waran qofka nebiga caaya sala allahu calay wasalam nacuudu billaah inankaygii aan dhalay oo dhintay sadaqo ma ka bixin karaa ma u bixin karaa sheekh meherka gabadha haddii uu sheekh meherka gabadha sakoma ku waajibtay haddii waxa weeye xadkii sakada uu gaadho sheekh waxaad nooga warantaa gabadha marka ninkaygu dhinto ee ay asayda sido ma u bannaan tahay inay subkato xinaysato iyo wixii kale dhaldhalaala waxaan doonayaa in laga jaahil saaro haddaan safar u baxo oo aan weysaysto oo aan sharabaado xidhanahay sharabaadada marmarka qaarkood ma masixi karaa jilcisadu ma xaaraan baa marka qof tima adag loo marinayo sheekh marka aan leeyahay waan toobad keenayaa oonan ka tegin shuruudihii oo aanan la wada iman shuruudihii toobadda ma igu filan tahay in aan ku celceliyo astaqfirullah astaqfirullah ma la geli karaa suuliga mobayl memori leh memerigana qur'aan iyo axaadiisi ay ku duuban tahay sheekh haddii uu qof dhul aan lahaa uu igu qabsado oo weliba uu ku dhaarto in uu leeyahay maxaa sharcigu ii ogol yahay in aan sameeyo jinka iyo insiga su-aasha kale waxay tahay jinka iyo insiga aakhiro ma loo kala xaq qaadaya
kolley waxaynu maraynaa xilli dambe waa 6 wax dhiman salaadii maqribna waa iska dhowdahay inahaas in ku soo gabagabayn lahayn wixii harsan runaantii waan ka cudur daaranaynaa waxaynu mahad celinaynaa waxa weeye dumarka khayrka badan leh ee soo qabanqaabiyey 14 su'aalood waana soo gaabiya insha Allah su'aasha hore haddii ninkii uu tahriibay miyaan furanahay maya ooridii baad weli tahay laba mid baad ku furmi kartaa inuu isagu ku soo furo iyo in si sharciya fasakhaad aad qaadiga uga qaadato expire date ma laha shayga la yiraahdo meherku wax iska furmaa ma jiro $2,000 hadday 12 bilood u soo wareegeen khilaaf baa ka jira inaad sakaynaysiyo in kale waxaynu se qaadanaynaa inaad sakaysood $50 ka bixiso aabbahaa wuu guursan karaa habrawadaagga inanta habrawadaagga tihiin labada habrawadaaggiina way isguursan karaan waxaanay la mid yihiinuun ilma abtiga iyo ilma adeerka wax la yidhaahdo musibyaanad ma jiro laakiin waa jin ku soo duulay qofka cilaaj sharciyaana la saari oo quraanka iyo ducada ayaa lagu daweyn aqoonta wanaagsan dadka cilaajka u leh alla ka cabsiga lana waa loo geyn doonaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay boqorka midna cayma laha qofka caayana gaal iyo islaam mid kasta ha ahaadee xeer ciqaabeed dil abu mutaystay maxkamadda islaamka in la keeno diintana uu ka baxaya hadduu muslim yahay aad uga feejignaada dumarkiinu hadday rag u caayaan diinta ama rasuulka ama gabadhiiba ay caydo waa in arrinku uu gaadhaa caailada garsoorka iyo sidii loo sixi lahaa qoyskaas arrintii way walaaqantay way kharibantay ubadka hadday dad waaweyn yihiin oo ay dhinteen sadaqo waad u samayn kartaa waqafa sida iyaguba intii aad dhimatay kadib ay kugu samayn karaan meherka ma la sakayn karaa haa meherkaagu hadduu gaadhay $4,000 ama 10 halaad iyo wixii ka badan uu yahay sanad walba sakaa lagu leeyahay hadduu ninkaagu ku siin karayo wey hadduu ninkaagu kuu hayo oo uu ku siin karayo oo aad ka qaadan weydo sanad walba sakaa ku waajibaysa haddii aanu ninku waxba hayninna beriga uu helaa unbay ku waajibaysa sidaa daraaddeed dumarka waa in meherka la siiyaa iyaduna hadduu ninku helayo waa inay ka qaadataa oo ay ku shaqaysataa masaakiintana sakada ka siisaa su-aasha kale ah gabadhu haddii ay asaydii sido maxaa la gudban 4 shay bay iska daynaysa udgoonka cusburka iyo cilaanka iyo iscasaynta indhakuusha dharka iyo dahabka dharka bilicdala iyo dahabka intaasay iska daynaysa laakiin subaga way marsan kartaa iyo wixii kale markaa dhaashiya habeenkii maalintii dhaashigu wejigu soo saaraa ee way iska dayn doontaa dharka way kala bedelanaysaa xijaabka ah ee asturan wax dharka khaasa ma xidhanayso goortay doontana way maydhan kartaa sharabaadadu hadday aad u adag yihiin oo kuwa buurbuuran ee suufka adag yihiin waa la masixi karaa qofka musaafirkiina 3 maalmood iyo 3 habeen qofka deegaanka ahina habeen iyo maalin buu masaxaya timu hadday aad u jilicsan yihiin aad u adag inay jurro yihiin dawadii waa loo isticmaali karaa si gabadhu aanay ugu dhibaatoonin feedhistooda su-aasha kale towbadda ka hadlaysa towbadda marka qofka laga aqbalayo shuruudihii 4 waa inay jiraan waa inuu macsiyadii ka murugooda go'aansadaa inaanu dib ugu noqonin farahana ka qaadaa dembi bani aadam uu ka galay hadduu yahayna dib waa inuu ugu celiyaa su-aasha moobaylka iyo qur-aanka la xidhiidha moobaylku qur-aanka ku jiraa wuu ka duwan yahay kan misxafka waa qoraal muuqdon qarsoomayn sistamka moobaylku waa kan mimeriga la yidhaahdee maskaxdeennoo kale markaa iskriimka kol haddaanu oolin ee laga qaada iskriimka uu ku qarsoon yahay dhib ma leh dhul baa la iga qaaday nebigu uu ka digay calayhi salaatu wasalaam qofka dhulka qaataa buu yidhi taa ka dhulka qofka qaata maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa iyadoo qoorta loo geliyey intii dhul uu goostay unbaa qoorta loo sudhayaa 7 dhulba waa laga soo fujinayaa allaha nacdala buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
calaamadaha dhulku uu leeyahay dadka u dhaxeeya qofka bedela haddii ay jago tahay iyo haddii ay beer tahay intaba aad ha looga feejignaado dadku marka ay arrinta dhulka gaadho waxa ka jira nacaybsiyo badan iyo boob badan waana wax aad u khatar badan oo aad iyo aad u sii daran markuu ilaahay addoomaha xisaabinayo waxa la xisaabinayaa waa jin iyo insi labadaa mukallafka la yidhaahdo mid kasta oo daalinaba ama jin ha ahaado ama insi ha ahaado xisaabta ilaahay waa u taallaa qolana wuxuu ku abaalmarin doonaa janno qolana naar wasalaamu calaykum jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik sheekh waynu mahad celinaynaa